wafdigan oo horkacayeen wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash iyo wasiirka beeraha Puntland Cabdi Ismaaciil Boos ayaa waxa ku weheliyay kormeerka xildhibaano iyo siyaasiyiin kale waxaana ay kormeereen ciidamada xoogga Puntland ee ku sugan jiida hore mas'uuliyiinta ayaa gaaray degmada ku meel gaarka Tukaraq waxaana ay la hadleen ciidamada iyagoona si weyn ugu bogaadiyay shaqada ay u hayaan dalka waxaana ay ku dhiirigeliyeen inay cagta mariyaan cadowga Puntland ku soo duulay ee sida tuugnimada ku soo galay dhulka Puntland xildhibaan Saadiq Abshir Garaad xildhibaan Cali Dhagacade iyo xildhibaan Kaysa Cabdi Boob ayaa ku sifeeyay cadowga Puntland ku soo duulay iyo waxa ay wataan qaniimo iyo hadiyad laga soo diray Hargeysa ayna ka gudoomeen kalena wareegi doonaan dhawaan xildhibaanada ayaa ciidamada Puntland ee saqdiiradka u sheegay in shacabka Puntland oo dhami diyaar u yihiin dagaalka dalka lagu xoreynayo kormeerkaas ujeedadiisu waxay ahayd sida la wada ogsoon yahay waxa xadgudub ku sameeyay maamulka gooni ugoosadka ah ee odayga Siyaanyo horjoogaha ka yahay inuu ku soo xadgudbay deegaanada Puntland horana xadgudubkiisu la badan ay u haysteen haddana ay soo gaareen Taleex waxaanu aragnaa ciidamada iyada fariismadooda runtii aad ugu faraxsanahay heegan ay ugu jiraan sidii hadiyada uu soo diray ee Taleex la keenay aan u aragno Siyaanyo inuu soo diray hadiyad waxaan leenahay waanu ka gudooni waana kala wareegana hadii Allah idmo waan ku kalsoonay boqolkiiba boqol ciidamada iyadu inay ku filan yihiin waxaan shacabka reer Puntland u sheeganaa inay u diyaar garoobaan difaaca dagaalka gardarrada ah ee SNM cadawga soo duulay jabhadda inay ka hortagaan oo la dagaalamaan aad iyo aad baan arinta ugu baaqaynaa meel kasta joogan waxaan u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo dadka shacabka reer Puntlandba inay maanta ka kacaan fadhiga ka kacaan la haraan qaniimada iyo maxaan ku raahday alaabta loo soo waariday 1 kiiloomitir soo socotay ay la haraan oo waxay ku furan karaan ul iyo hangool bay ku furan karaan ay la haraan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Karaash iyo wasiirka beeraha Cabdi Ismaaciil Boos ayaa shacabka Puntland ugu baaqay iyana inay u diyaar garoobaan hujuumka dhulka lagu xoreynayo ayna dawladdu horkici doonto gaar ahaan Tukaraq aad iyo aad baan ugu faraxsanahay habin ugu nahay taliyaasha ciidamada iyo aag hore hawsha ay halkan u joogaan iyo waajibaadka dalka ka saaran iyo iyadoo maanta aanu halkan ku xaqiijinay kuna ogaanay anagoo ah golihii xildhibaanada iyo golihii wasiirada in ay imkaaniyaadkii ciidan iyo wax allaale wixii baahiyeedna u dhan yihiin maanta laga bilaabana ay diyaar u yihiin wixii waajib ay gudan